Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kasoo dhawaada walaalayaal. Dialoogni muquusanka waan dhiganaynaa maanta. Dialoogii shanaad wala sheekaysiga shanaad. Casharadan waxay noqonayaan taxane. Insha Allah casharo badan oo dialooga oo taxana oo socon doona ayaan soo diyaarin doonaa oo soo dhigi doonaa YouTube-ka. Insha Allah maalin kastoo sabtiga iyo maalin kastoo jumcana waan ku dadaalayaa inaan video soo dhigo. Labada cisha inoo ballama insha Allah inaan video soo dhigo. hadday maalmaha kalena ay suurta gashana waan soo dhigi doonaa, laakiin labada cisho ayaan rajeynayaa inaan video soo dhigo saa ula socda. Maanta dialooga sidii caadadu ahayd bogolitiirka codfa baan ku akhrin doonaa, kadibna Soomaali baan ku macnin doonaa, akhritaanka Soomaaliga geli doonaa, kadibna ereyada iyo waxaan ka faa'iideysanay kelmadahan ka faa'iideysanayna hoosta waan macnin doonaa. Insha Allah dialoogo badan oo iskuul waxiga oo maxay ahayd taxana ah isku daba xiga oo dialoog kasta waan ka faa'iideysan doono, casharada ku jira, vocabulary-da ku jira iyo haddii ku jiraan maxay ahayd casharo kale waan ka faa'iideysan doonaa haddii Ilaahay dhaahdo. Waan bilaabayaa. Titre: D'où venez-vous? A. Bonsoir, mon nom est Abdi, comment vous vous appelez? B. Enchanté, je m'appelle Hinda. D'où venez-vous, Hinda? Je viens des États-Unis d'Amérique. Et toi, vous venez d'où? J'aime les États-Unis. Moi, je viens de France. J'adore la France. C'est un très beau pays. Merci beaucoup. De rien. Titre: D'où venez-vous? Bonsoir, mon nom est Abdi. Comment vous vous appelez? Enchanté, je m'appelle Hinda. D'où venez-vous, Hinda? Je viens des États-Unis d'Amérique. Et toi, vous venez d'où? J'aime les États-Unis. Moi, je viens de France. J'adore la France. C'est un très beau pays. Merci beaucoup. De rien. casharadani waxay yeelan doonaan ciwaan bay yeelan doonaan. Cashar kastaba ciwaan baan u yeeli doonaa. ciwaankiisabaan maxay ahayd aan macnin doonaa. cashar ciwaan iskale ayaan soo gudbin doonaa oo ciwaankiisa un baan macnin doonaa iyo casharkuna ciwaanka wax ku saabsan baan macnin doonaa. Imika baan ku bilaabanaa. Bonsoir, habeen wanaagsan ama nabad weyn. Marka waxaa la isticmaalaa habeenkii ayaa la isticmaalaa salaantan. Tii hore bonjour bay ahayd, tana waa bonsoir. Tii hore bonjour bay ahayd, tana waa bonsoir. oo waxaa la isticmaalaa habeenkii baa la isticmaalaa ilaa fiidkii ka dambeeya maghribka. Mon nom est Abdi, magacaygu waa Abdi. Comment vous vous appelez? Magaca waa citation. Aan soo dhigna citation formelle iyo citation informelle. Imika waa laba qof isgaranayn, waa citation formelle isbaranaya. Enchanté, isbarasho wanaagsan, kulan wanaagsan bay noqotaa. Je m'appelle Hinda, magacaygu waa Hinda, waa gabadh weyn. Je m'appelle Hinda, magacaygu waa Hinda. D'où venez-vous, Hinda? Hinda halkeed ka imad? Ama jinsiyadaadu waa maxay? Ama d'où venez-vous, Hinda jinsiyadaadu waa maxay? Nacam, wadankay ayaad u dhalatay. Je viens des États-Unis d'Amérique, wadankaygu waa Maraykanka. Des États-Unis d'Amérique waa wadankaygu waa Maraykanka. Et toi, adigana, vous venez d'où? halkee baad ka imad? Ama waa maxay jinsiyadaadu? J'aime les États-Unis. wuxuu ku jawaabay ninkii weyn ka hadlay. J'aime les États-Unis. Abdi weyn. J'aime les États-Unis. Maraykanka waan jecel yahay. Moi, anigu, je viens de France. Anigu Faransiiska ayaan ka yimid. B. J'adore la France. Hinda waxay tiri imika j'adore la France. Anigu Faransiiska waan jeclahay. C'est un très beau pays. waa wadan aad u qurux badan. Merci beaucoup. aad baad u mahadsan tahay buu ka yidhi Abdi. Hindana waxay ka tiri deeqiya adiga mudan. ugu soo celinayaan ciwaanka casharku caawa. Titre waa ciwaan. casharka caawa ciwaankiisu waa maxay? D'où venez-vous? halkee baad ka imatay? Bonsoir, habeen wanaagsan ama nabad. habeen kala kala isticmaala. Mon nom est Abdi, magacaygu waa Abdi. Comment vous vous appelez? magaca. Enchanté, barasho wanaagsan ama kulan wanaagsan. Je m'appelle Hinda, magacaygu waa Hinda. D'où venez-vous, Hinda? Hinda halkeed ka imatay? Je viens des États-Unis d'Amérique. waxaan ka imiday Maraykanka. Et toi, adiguna, vous venez d'où? halkee baad ka imatay? J'aime les États-Unis. anu Maraykanka waan jecel yahay. Moi, anigu, je viens de France. anu Faransiiska ayaan ka imiday. J'adore la France. waxaan ku jawaabay Hinda. Faransiiska waan jeclahay. C'est un très beau pays. waa wadan qurux badan. Merci beaucoup. aad ayaa u mahadsan tahay. Hinda ku jawaabtay deeqiya adiga ayaa mudan. halkan kelmadu maxay nooga soo baxayo oo aan ka faa'iideysanaynaa. kelmadahan ka faa'iideysanayno vocabulary-ga qeybteena qaba vocabulary-kan ka qaadanayno waxaa kamid ah enchanté.
enchanté waa maxay waa barasho wanaagsan ama la kulan wanaagsan isbarasho wanaagsan labada qof marka isbaranaysku ugu horeysa la isticmaala enchanté. Ravi de faire votre connaissance way jirtaa waan arki doonaa qabo badan oo la isku oranayo barasho wanaagsan ama la kulan wanaagsan arki doonaa insha Allah. Kelmadda kale ku xigta waa eta waa dawlad. Kelmadda États-Unis baan kala gooyay. Eta waa maxay waa dawlad, inina waa midoobay weeyaan. Marka États-Unis waa dawladaha midoobay, Mareykanku waa dawlado badan konton dawladood oo midoobay. Kolkaas abal États-Unis d'Amérique baa la waa wadanka Mareykanka ama États-Unis waa kartaaba waa wadanka Mareykanka la kolka waa dawlado midoobay qoraalman kala gooyay si aan ku kala faa'iideeyo eta iyo ini laakiin kuma qoran kan iyadna wax kale intaay waa midoobay. Eta waa maxay waa dawlad. Tuwa maxay lan tahay maqashid waa adiga waa halkee waa TV-andu waa dil gadkeedka inta galanta halkan waa halkay kelmadahan casharadan waa taxane la socda kelmadahan soo noqon doonaan hadhow talo arki doontiin casharar kuwan oo badilan oo dhinaca kaas ugu jiro su'aalaha wadino cashirka horan u soo aragnay macnaheedu maxay yahay su'aalaha wadiid doon haduu Ilaahay dhaahdo venir waa imasho vient in qodobka kala conjugayo TV-andu halkeed ka imata marka waa imasho venir waan dhiga doonaa conjuga songa grammarka waxaan oo dhan insha Allah haduu Ilaahay dhaahdo gaarino imika laakiin waxaan ku jirnaa waa baaskii waa asaas casharkii asaaska ahaa lagu baranayay luqadda. Adoqi maxay waa jeclaasho marka laga turo erta adoq noqoshada waa jeclaasho ama budud bay noqotay Ilaahay cabid laba macno bay leedahay verbigaasi imika kelmadan waxay u taala jeclaasho. Imina waa jeclaasho adoqiyo imina waa jeclaasho oo waa isku mid j'aime la France bay tiraahdo Faransiiska waan jecelahay bay tiraahdo Faransiiska waan jecelahay bay tiraahdo gabadha markii ama j'aime les États-Unis Faransiiska waan Mareykanka waan jecelahay isaguna waxa yiri J'adore la France ana Faransiiskan jeceliye gabadha tiri J'adore la France isaguna wuxuu leeyahay États-Unis anu Mareykankan jeceliye buu labadu kala qaasay waa sida macnuhu go kelmadda ku xigta waa beau c'est un beau pays c'est un très beau pays waa wadan qurux badan pays waa maxay wadan weeyaan beau waa maxay waa qurux pays waa maxay waa wadan moi waa maxay waa aniga waa maxay waa aniga seena waa bay ka dhantay c'est un très beau pays waa wadan qurux badan see waa weeyaan waxbay tilmaantay iyadu deeqiyana waa mudan deeqiya merci beaucoup waa laga dhima deeqiya adiga mudan ama je t'en prie bala macna ma arki doona insha Allah haduu Ilaahay dhaahdo bonsoirna waa habeen wanaagsan insha Allah waxaan iga codsanayaa inaad walaal hadad ku cusub tahay nagu cusub tahay saaxiib nagu cusub tahay inaad nala noqotid macina noqotid oo subscribe saartid oo aboneysid oo like nagu taageertid oo fiidiyoga haduu ku anfacay like nasaar had walaalahana u partage waa share weeyaan u partage walaalaha si ay uga faa'iideystaan sad adigoo kale uga faa'iideysatay insha Allah casharada taxani noqon doonaan laga faa'iideysto ardayay laga faa'iideysto insha Allah inta baan ku joojinayaa maanta waa aniga walaalkiin oo Axmeda waxaan leeyahay maalin wanaagsan dad baan joogtiin hadda habeen joogtiin habeen wanaagsan.